kulanti wacan saaxiibayaal halakani waa warsida TV fadlan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo ka reebay shirarkii ugu muhiimsanaa magaalada Muqdisho Cumar Filish khilaaf aad u weyn oo soo dhex galay xasan sheekh maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo olole Somaliland ka bilowday oo loogu magac daray qof kasta iyo qorigiisa ayaa ka bilowday magaalooyinka waaweyn ee Somaliland iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Barre oo ku sii jeeda gobolka Hiiraan iyo magaalada Beledweyne iyo xogo ku saabsan safarka xasan sheekh maxamuud ee Puntland wararkeena dibaddana waxaad ku maqli doontaan dagaalkii Tigray oo dib u soo laabtay iyo boqorka Morocco Maxamedka lixaad oo lagu arkay wadooyinka magaalada Paris asagoo ka dhargay khamri ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa wajahaya cadaadisyo uga imaanaya xukuumadda xasan sheekh maxamuud waxaan bashaki ku jirin in xukuumadda xasan sheekh maxamuud ay dhawaan soo magacaabi doonto gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ay ka wareejin doonto xilkaasi Cumar Filish durbaba xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay inuu Cumar Filish ka reebo shirarka ugu waaweyn ee wadanka sida shirka amniga qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay Cumar Filish ayaanba ka soo muuqan shirkaasi kadib markii lagu casumi waayay shirkaasi xasan sheekh maxamuud ayaa arintan waxa uu gol leeyahay inuu dareensiiyo Cumar Filish inuu xilka wareejin doono maalmaha soo socda kadib safarka Puntland uu ku bixi doono xasan sheekh maxamuud maanta ayaa la rajaynayaa usbuuca soo socda in xasan sheekh maxamuud uu magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa laga dareemayaa in aanan sii xiiseynin xilkan inuu sii joogo kadib markii uu weerar afka ku qaaday xukuumadda xasan sheekh maxamuud sheegana in ciyaal weeradu ay ka bilaabatay ciidamadii uu aruuriyay xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad ee badbaado qaran Cumar Filish ayaa si cad u sheegay in ciyaal weero iyo qalalaasaha ka taagan magaalada Muqdisho ay bilaabatay maalintii ay bilaabeen foodada mucaaradka warar lagu kalsoon yahay aanu ka helayno magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Shariif Sheekh Axmed iyo Filla Soomaaliya uu soo dhex galay khilaaf aad u weyn madaxweynaha talada hayay xasan sheekh maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa isku fahmi waayay kadib markii xasan sheekh maxamuud uu isku dayay inuu u magacaabo Shariif Sheekh Axmed ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa iska diiday inuu xilkaasi qabto kuna tilmaamay falka xasan sheekh maxamuud mid aan lahayn ixtiraam Shariif Sheekh Axmed ayaa ka dhawaajiyay inuusan u qalmin xil aan ka ahayn xilka madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa aad uga cudur daartay inuu xilkaasi qabto kuna tilmaamay isku dayga xasan sheekh maxamuud mid uu ku doonayo inuu siyaasiyiinta beesha mudulood uu gacantiisa ku dhigo xasan sheekh maxamuud ayaa xilkan xil u eg oo ku saabsan dhanka abaaraha u magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ahaa ninkii ugu weynaa mucaaradka dawladda xasan sheekh maxamuud ayaa ku dadaalaysa in siyaasiyiinta ugu waaweyn beelaha mudulood ay taageeraan xukuumadda Filla Soomaaliya dhanka kale Shariif Sheekh Axmed ayaa aad uga careysan kadib markii uu Shariif u gudbiyay golaha wasiirada in lagu soo daro xubno aad uga agdhowdhowaa taasina ay iska indhatirtay xukuumadda xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo koobay xukuumaddiisa mid badankood ay ka soo muuqdeen xisbigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee UDP arrintan ayaa ka dhigaysa jaarisna u siinaysa Shariif Sheekh Axmed inuu noqdo mucaaradka qofka ugu horeeya ee dagaal ku soo qaada xukuumadda xasan sheekh maxamuud haatan dhankaas iyo Somaliland beesha garxajis oo kaashanaysa mucaaradka Somaliland ayaa ku dhawaaqday olole ka dhan ah xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ololahaas ayaa loogu magac daray qof kasta iyo qorigiisa arrintan ayaa keenaysa kadib markii xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay isku dhajisay xilka ugu sareeya ee wadanka diidayna inay talada wadanka ku wareejiso si nabada xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ayaa dalbanaysa muddo kororsi hal sano ah halkaas ay mucaaradka Somaliland iyo beesha garxajis ay diidan yihiin beesha garxajis ayaa aaminsan sanadkan inuu xilku yahay dhankooda ayna noqon doonaan madaxweynaha Somaliland siiba loo saadaalinayo inuu noqdo musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Ciro
ololahan ayaa khatar ku noqonaya amniga Somaliland kana dhigi kara mid keena dagaal sokeeye. ololahan ayaa la sheegay in qof kasta uu soo qaato qorigiisa. horaantii bishan ayaa Faysal Cali Waraabe si cad uga soo muuqday telefishinada wadanka kuna sheegay shicibka Somaliland inay qoryahooda soo qaataan. Faysal Cali Waraabe ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. wararkan ka helayna magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ayaa sheegaya ololahani inuu yahay mid bilowday mar horeba. wadooyinka ugu waaweyn magaalada Muqdisho siiba wadooyinka aada aeroboortka iyo bartamaha magaalada Muqdisho ayaa la xiray. ujeedada ayaa ah safar uu ku bixi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Barre uu ku aadi doono gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne. safarka ayaa la sheegayaa in ra'iisul wasaaruhu noqon doono safarkii ugu horeeyay uu ku tagay gobolka Hiiraan. ra'iisul wasaaraha ayaa halkaas kula kulmi doona madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe. dhanka kale warar aan helayna ayaa sheegaya inuu Xamse Barre uu tagi doono jiida hore ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, halkaas uu ku dhiirigelin doono ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyay ka safeeyay gobolka Hiiraan ururka Al-Shabaab. dhanka kale Xamse Barre ayaa la sheegayaa inuu raaligelin doono madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed. usbuucii la soo dhaafay ayaa xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya weerar afka ah ku qaadeen xukuumadda Hirshabelle, sheegeenna inay xukuumaddaasi tahay xukuumad aan dheelitirneyn. Yuusuf Dabageed oo u jawaabay ayaa ku tilmaamay wararka ka soo yeeray xildhibaanada federaalka Soomaaliya warar aan loo dulqaadan karin. dhanka kale haatan waxaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sii jeeda dhankaas iyo Puntland. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu ka dago magaalada Garowe ee Puntland. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu kala hadlo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani danaha filla Soomaaliya kaga aadan Puntland. sidoo kale warar hoose ayaa sheegaya inay ka wada hadli doonaan muddo kororsigii uu maalmo dhoweyd sameeyay Axmed Madoobe. xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taageero u raadin doonta in laga soo horjeesto muddo kororsiga uu sameeyay Axmed Madoobe. dhanka kale Puntland ayaa ah mid u muuqata inay tahay saaxiib ka agdhow maamulka Jubbaland. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sameyn doona isku dayo waaweyn uu uga hortagi doono in muddo kororsi ay sameeyaan maamul goboleedada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo hore ugu dhawaaqday inay ku darsatay hal sano. wararka kale aan helayna ayaa sheegaya in maamulka Puntland uu markii hore iska diiday safar uu ku imaan lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Barre. Puntland ayaa sheegay safarka Xamse Barre inuusan u qalmin haatan inuu ku yimaado Puntland, maadaama ay Puntland rabto inay heshiisyada iyo wadahadal dheeri ah la gasho madaxweynaha ugu sarreeya dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Dani ayaa qaabilay wafdigii horudhac ahaa ee uu soo diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud una sheegay in Xamse Barre haatan looga baahnayn inuu yimaado Puntland. dagaaladii u dhaxeeyay xukuumadda Abiy Ahmed iyo maleeshiyaadka Tigreega ayaa dib uga bilowday dhankaas Itoobiya. wararka ayaa sheegaya in ciidamada huwanta dowladda federaalka Itoobiya ay dagaal ku qaadeen ciidamada Tigre oo isku aruursanayay duleedka gobolkaas Tigre. taliyaha qaybta 6aad ee ciidamada Itoobiya ee ku sugan agagaarka gobolkaas Tigre ayaa sheegay in ciidamada Tigreega ay ka dareemeen dhaqdhaqaaq is aruursi iyo dagaal kale inay ku soo qaadaan xukuumadda Itoobiya. taliyaha u waramay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay inaysan ahayn wixii meesha ka dhacay dagaal ayse ahayd ciribtir maleeshiyaad isku bahaysanaysay inay dagaal ku soo qaadaan xukuumadda Itoobiya. dhanka kale dhankaas iyo Morocco, boqorka 6aad ee Morocco Maxamedka 6aad ayaa lagu arkay wadooyinka magaalada Paris asagoo khamri cabsan oo dhaadhacaya. durbaba waxaa qabsaday baraha bulshada wadankaasi Morocco in madaxdii ugu sarreysay wadanka ay ku tumanayaan magaalada Paris ee wadankaasi Faransa. dadka reer Morocco ayaa ku tilmaamay ficilkani ficil aan la aqbalaynin. xukuumadda oo arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in boqorku uusan cabsaneen uu laakiin xanuunsanayay xanuun dartiisna la dhaadhacayay markaasna loo waday habeen. dadyooga falaqeeya siyaasadda ee dalkaasi Morocco ayaa arrintan ku tilmaamay arrin sheegana cudurdaarka ee dowladdu samaysay mid been ah. dadka ayaa sheegay in arrintani ay caddahay uu boqorku gacantiisa bidix ku watay khamri
loona diidanaa kaamirooyinka sida ku muuqatay fiidiyowga. boqorka Morocco ayaa hadda wajahaya cadaadis uga imaanaya shacabka wadankiisa kadib fadeexadii uu kala kulmay Paris. daawadayaal waa naga intaas wararkii naga soo gaaray Soomaaliya iyo caalamkaba. fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto wararka warkan xiga. mahadsanidin.